السلام عليكم أحبابي مول وأجبتان وإذن سلامي كسو دواء جنال كيغا تكتوري ساتشيا ما أنتو وحان إذن سيا أفر إتبان فائيدو أو لغا هلو فيتامين ديغا هدابا هديات تاي قفكو عزوب جنال كينا سبسكرايب إنوسار مقالكا هلاك إنوسار هديات تا أصحابتي هوري إنو جوبتينا فضلا مقالكا نولا كريا هدو رب رالي النقضو وحينو قذو قلينا موضوعينا فيتامين ديغا وحقو كمد يهي fitamiinada ugu muhiimsan ee jirka aadanaha jirku waxa uu ka helaa faa'iidooyin caafimaad oo tiro badan haddaba fitamiin D-ga waxa laga helaa caanaha kalluunka guud ahaan cuntooyinka badda ukunta beerka shucaaca qoraxda oo 10 ilaa 20 daqiiqo la isku dhigo faa'iidooyinka caafimaad uu leeyahay waxaa ka mid ah 1 isku dheelitiranka calciumka ee jirka u ilaaliya 2 khatarta cudurrada dhiigga karka la xiriira ayuu ka hortagaa 3 macdanta in ay degto lafaha ayuu ka shaqeeyaa 4 soo nuugista jirka ee phosphate-ka ayuu kordhiyaa 5 habdhiska difaaca jirka ayuu kor u qaadaa 6 kansarka ayuu ka hortagaa 7 miisaanka jirka ayuu sare u qaadaa 8 ilmaha caloosha ku jira ayuu sumowga ka ilaaliyaa 9 garaaca wadnaha ayuu xakameeyaa 10 lafaha ayuu kobciyaa sarena u qaadaa 11 wuxuu ka hortagaa walaaca iyo walwal waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe inoo saar haddii aad ka mid tahay asxaabtii hore noola joogtana muuqaalka la garay siina share garay